nabad marka la helo waxa ka farcama dhammaan horumarka noocyadiisa kala duwan oo dhan nooc kasta oo yahay nabad ayay ka farcamaan waa ogtiina waxaynu ku jirnaa qarnigii 21aad sanadku waa 2018 ma dhacayso suuragalna ma aha dad sirkhaamin ah ama khamriya cad inay noo taliyaan oo yiraahdaan maamul goboleedka Puntland baanu tagaynaa dalkaanu soo weerarnaa ma dhacayso way dhamaatay xilligana waa xilligii talinayeen aqoon culimada waxgaradka iyo aqligu talinayay dawladda Soomaaliland ee jirta iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi wuxuu hormoodu yahay inaan wax qabad dhab ah oo la taaban karo oo run ah oo isu dheeli tiran oo dhinacaan ka dheeliyahay in dhammaan dalka oo dhan la gaarsiiyo waa ogtihiin horumarka waxa aan ka soo bilaabaynaa gobolada Soomaaliya sanaad baan ka soo bilaabaynaa mashruuca horumarinta ee Soomaaliland isagana isagana bariyaan ka soo bilaabaynaa gobolka sanaad yihiin oo mashruucii ugu weynaa ayaanu ka wadnaa wadadii isku xidhaysay dalka oo dhan inaan gaarsiino marka wadadaas dhamaatana Jabuuti dhisno marka dambana aan dib ugu celino gobolka sanaad oo laas qoray iyo magaalada Ceerigaabo aan isku xidhno waxaan doonaynaa waa gobolkii ugu weynaa dalka in beerihiisa iyo kalluunkiisa iyo macdintiisa kala duwan ee dul ahaaysa buuraha sida ciishiidoo kale in dadka deegaanka u dhashay iyo dhammaan jamhuuriyadda Soomaaliland si siman oo waafi ah ay uga faa'iideystaan oo ma dul qaadanayno in khalkhal la geliyo nabadda oo ma dul qaadanayno in qaab qabiil la isu abaabulo waxaas oo dhan wax suura galaya maaha waxaan u farayaa aan doonayaa inaan fariin halkan faro qurba jooga Soomaaliland meel kasta ay joogaan Soomaaliland hore u soconaysa horumarka socda war ka qayb qaata u dul qaadan mayno baraha bulshada in dadka laga soo abaabulo inama yaro Yurub jooga liisaskooda iyo magacadooda waanu haynaa lacagta caydha ay qaataana waanu ognahay dalalka ka qaataana diyaar uma aha inay Soomaaliland burburiyaan waa kuwa Soomaaliland har iyo habeen caawinaya shuruucdooda iyo dastuurkooda u yeela dalalka reer galbeedka haday Yurub tahay haday tahay waqooyiga Mareykankana ma ogola in dalalka la burburiyo waxaan fariin culus u dirayaa oo aan ku celinayaa waxaan fariin culus u dirayaa oo ku celinayaa inay ka qayb qaataan horumarka socda ee kala duwan ee aanay